waxaa si wada jir ah laydinkugu eedeynayaa inaad ka tirsan tihiin kooxda al-shabaab gaar ahaan qaybta qaraxyada iyo sahminta. halkan waxaa ka bilaabatay dhageysiga eed ka dhan ah maxamuud cabdiraxmaan oo magacyadiisa afgarashadu yihiin Salmaan iyo Axmed iyo Cali Dhubbad Nuurasiyaad. labadaba waxaa loo heystaa ka mid ahaanshiyaha maleeshiyada al-shabaab. mid kasta oo ka mid ah waxaa fursad loo siiyey inuu ka jawaabo eedda loo heysto. eedeysanaha koowaad maxamuud cabdiraxmaan oo ku xirnaa qaraxa nooca jaakada ah ayaa fadhiga maxkamadda ka hor sheegay hadafkiisa iyo in ujeedkiisu uu ahaa 3 nin uu isku qarxin lahaa isagoo isku ekeysiya abwaan ka qayb qaadanayo walaalo loo duceynayo kuwaas oo ku baxay gacanta argagixisada xilli ay difaacayeen gobolada dhexe gaar ahaan degmada Guraceel. waxa la igu sheegay inuu dhahay qulbi idini geel la qalay inaan nooleen karo isku day qulbi idini idinkeyga ku kac inuu dhahay midna inuu shiicada xariir leeyahay shiicadana waxay aawdaweyna waa la ogi shiicadana waxay aawdaa ilaahay qeyrkiisa sida loo geeskeeda iyo waxba say aawdaa waa la igu sheegay mid kalena waa qaay murtad waa la igu dhahay bisaani. eedeysanaha labaad Cali Dhubbad Nuurasiyaad ayaa maxkamadda ka hor sheegay inuu u baqay noloshiisa iyo ganacsiga hubka ah ee uu iibsado laakiin hawshan furinteeda ay ka soo gashay gacan saddexaad oo gobolka Galgaduud Dhuumaaleysi ku joogto kana tirsan maleeshiyada al-shabaab. waxa uu qirsan yahay inuu isku furtay la shaqeynta eedeysanaha koowaad. ninkan anigu waxay ka soo gashay nin ceel burjooga al-shabaab ah soo wacay wuxuu yiri waa ognahay waxa ka shaqeeydo waxa maamulka ka shaqeeyay waa inta oo huwa anaga waa ognahay intaas oo sanad maamulka u shaqeeyay waa ognahay ninka saddex jaamacad ka soo wadin ee aadageyn shimbiro eenshe madaxaaga ayaa ku weeyay sadaraadeen waa qalqalay meesha shimbiro shan keenay eedasan leeyahay. markaatiyaasha gacanta ula tagay eedeysanaha una tababarnaa la dagaalanka al-shabaab ayay maxkamadda dhageysatay. sidoo kale dhinacyada dacwadda ayaa su'aalo weydiiyay baarihii kiiskan. xafiiska xeer ilaalinta ayaa codsaday in lagu xukumo ciqaab u dhiganta qodobada ay ku soo eedeeyeen maadaama labada eedeysana ay si wada jir ah uga shaqeeyeen dhagar fashilantay oo aan natiijadeeda la mahadin lahayn. maxkamadda sharafka leh waa yani wax mucjizo ah bani aadam inta la eg oo wax dambi aan ka gelin in la xasuuq waan ku tilmaami karnaa wax kale ma ahayn waxay damacsanayeen waa xasuuq ilaahay baa ummadda ka badbaadiya. sidaas darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in lagu xukumo ciqaabaha ay qorayaan qodobada iyo aayaadka quraanka aan ku soo eedeynay si ay tusaale ugu noqoto kuwa dambe ee ay la khaldi doonaan inay dad soo aadaan. maxkamaddu waa mahadsantahay. qareenka labada eedeysana ayaa ku dooday gabagabada kiiskan inaysan suuragal ahayn eedda eedeysanaha labaad iyo in loo naxariistay eedeysanaha koowaad. in uu meesha qarax asiga ku hagaayay waxa isweydiin mudan nin caruurtiisa iyo xaaskiisa meesha ay ku sugnaayeen ma geyn karaa qarax oo ma baabi'in karaa waa maya. waxaana caddayn ugu filan waxa ilaa boosaaso oo ugu socdo maalin walba oo hubka u gadaayo oo u ordaayo oo u ganacsanayo waxa waaye oo kaliya inuu ilmihiisa ku badbaadiyo oo ku karsado ilmihiisa. marka meeshaas waxaa ka muuqato Cali inuusan ogeyn suunka ninkan ku xirnay oo eedeysanaha labaad ee koowaad lagu eedeynayo ma ogeyn Cali sababtoo waxay tahay nin xaaskiisa caruurtiisa meeshaas ay ku sugeen qarax ma geynayo. fadhigan oo ahaa mid daahfuran oo dadka deegaanka ay ka soo qayb galeen sida saraakiisha amniga maamulka degmada odayaasha culimada ahlu sunna iyo bulshada inteeda kale ayaa lagu qabtay xarunta degmada Dhuusamareeb. al-shabaab ayaa ka qoostay la dagaalanka ahlu sunna wixii ka dambeeyay 20 Maaj 2012 kadib jab xoogan oo ay la kulmeen. hadda dadka deegaanka wax walwal ah kama qabaan al-shabaab waana dhulka kaliya ee bartamaha iyo koonfurta ugu nabdoon dalkeena.